gabadhii xaafadda joogto marka adeega u dhiiba gabadhii wuu kufsaday ninkii gabadha adaa dhashay anaa dhalay gabadha haa qabiilkeedana gabadhu yay tahay saleebaan waay habar gidir idina masaleebaan kalaa gabadha haa anigana saleebaan ah gabadhana saleebaan waay ayada ma dasho una soo farax gabadha farax waa dashamo waay dashamaya ka tahay gabadhu reewgaas gabadha waa ree ugaas adigana cabdigaabaa tahay haa adiga cabdigaab yaa ka tahay adeer yaa cabdigaab yaa ka tahay cabdigaab waxaan ka ahay cawaale ina ayaa tahay isukoo sheeg aan ku fahmeen ina ayaa tahay inuu yusuf xirsi cali yaa lidhaa reegodin laba ahay godin labaad degana aabe reegodin laba waay xirsi cali tooxo waay baalka xeeta aabeheya haa marka ninka gabadha kufsanaya yuu yahay marka kaa kufsanaya biyo maal waay ninka marka meesha lagu kufsanayo kiisoo kuu soo diray soo saaro waa arkay ninka sawirka waa arkay meesha lagu kufsanayo waa intee waa jubbaland dhoble ha dhoble miya haa walaal haye marka gabadha kufsiga dhakhtar ma geysay waa la geeyay dhakhtarkii waraaqadaha caddeynta beriya kuu keenaa istaalkay jiraan waa ka soo qaadaa hay-adaha amnigaan ninka kula wareegay hala wareegayna maxkamadda ninkii lasoo saaray maxkamaddii ninkii markii lasoo saaray waxaa dhacday inuu dacwaddii markay bilaabatay xeer ilaaliyaha baa erey qaldan oo aan ka xanaaqay ugu sameeyey wuxuu dhahay ninka oo dacwadda baalka xeeta eedaysanaha wuxuu dhahay haddaad ereygaas dembigaas aad qirato 15 sano oo xarigaa mutaysan kartaa nin dembiga ereygaas loo sii halmariya dembi ma qiranaa maya ma qiranayo meeshaas dembiga lagu waayo soo maaho haye wasaatag isbitaalkii dib loogu laabtay wuxuu yidhi caddayn kale u baahanahay markhaatiyaasha isbitaalka u baahanahay hala ii keeno markhaatiyaasha isbitaalka ma u baahan tahay haa waa la keenay ayaga xeer ilaalinta bixeen waa la keenay markii la keenay xeer ilaalintii waxaa lagu soo celiyey meesha dacwaddii la furay qolkii la soo wada gal hoolkii wuxuu dhahay wiilkii dhakhtarka ah waxaan ku dhaaranayaa oo magaca ilaahay igu ah inuu gabadhaas ninkaas macnaha ninkan ma aqaaniyo dhaqoon uma lihi laakiin waxaa meeshaas aan ku arkay inuu kufsi yahay tacaddi loo geysto gabadhaas jaraaxo waaweyn ay ku taalo ma fahantay haye sidii baalka xeeta wuxuu dhahay kiiskan wuu xiran yahay waa noo arbacada haddane maxaa la dhihi jira haddana ikowne dhakhtar cusub ha la geeyo gabadha maxaa gaara marka nin kufsaday ku ogaataa gabadha kufsaday wax calaamad ma ku yaala calaamadaha ku yaal haa calaamadaha ku yaal taalo marka meesha dhibkaa ka dhacay waa dhobley waay waa dhobley haa haye adiga hadda marka maxkamadda maxaa u timid ifaansi maxaa u timid maxkamadda u imaaday inay cadaalad darro ka tirsanaayo qolada maxkamadda dhobley joogto aabbaha ma wacdi buu sheegtay tolka dhan dadkana xamaray jiraan waa la wada ogyahay kufsigan tacaddigan inuu gabadha ku dhacay oo loo geysto waa la wada ogyahay markii oo hawshan ay kugu dhacday tolku maxay arrintan ka go'aamiyeen ma inaan ninkii dacwad ku furno ma inaan rag dad la diro oo meeshii joogto lagu yimaado maadaama daahir dhegeyso dad waa ila joogaan dad la'aan ma ihi haye nin matalo oo nabadoona meesha ku leenahay hawiye haddaan nahayna meeshaas ma ku kala soocnin ma fahantay haye mursadaa joogo abgaalaa joogo maxaa la dhihi jiray saleemaana joogo cayraa joogo ma ku kala soocnin meeshaas ninkii markaas odayaha weyn noo nabadoon noo ah waay ninka nabadoonka weyn waa baalka xeeto deer cali xaashiyaal dhaha waa saleebaan waay ninka labaada ku xiga waa mursade waxaa la dhahaa nuur dheere marka meeshii oday la'aan ma jirto oday way buuxaan kiiskii waa la galay laakiin aniga cadaalad daraa ka tirsanaya maxkamaddaas dhoble cadaalad iimee falinin ninkaas waa la iiga exda aniga marka hore godinle maxaa kaa soo wadi yahu godinle maxaa kaa soo maxaa meesha waa laygu qabaaye ma saleebaana kuu qabo meesha mise qabin qolo kale ogaadeen ay igu qabo meeqa soomaalis dhex joogto may waa ku weydiiyey wixii kaa soo wadi horta gabadha dhibaata ku furan xanaaqeeda iyo caradeeda yaa loo qabanin hadda waxay ku leedahay meeqa jir waaye habar yar geeyada 7 jir waaye gabar 7 sano jirta abaaye
حسبي الله ونعم الوكيل هذا من هذا مقلة هو نوين قبل يرو تدبجي حقي mid dumar ah iyo laba nin oo rag ah oo isbitaalka jooga marqaati ah oo gabadha wax alla wixii ku dhacay arkeen oo kitaab 14 boqolka umar ayaana joogaan maxkamadda sida loo rabay هذا من مقلة بتاع waa ku maqlaaya هذه مركز سوق عايز قبل إن كان محاو كده أبجمالك waxa uu keenay ninkan ganacsado waaye gaariyo wataa taksiilo waaye aniga ganacsado waxay qaad leeyahay qaad baan gataa هاي waxay qaadku ii soo qaajir kabarku ii geey jiray casarka markii la tukadane xaafadda adeeg loogu dhiibi jiray hadane كو adeegas geeyal dhii jiray xaafadda ambulaas yarta aduka gabadha saartay هاي sidii adeeg gabadha uu qaado guriga uga kufsigan sidii ku sameeyay هاي waka من مقلة ساعة waa ku maqlaa كيس كان قاد بون حمر وقي arbax foon xamar oo yaa bartaa أخي بحرتي على